Hi, Somali students. Do you need to learn English? Iswe soo dhawaada jaalayaal cabdishiin waa mid ka mid ah ardayda dhawaanaha dhammaystay jaamacadaha cabdi waxa uu doonayaa inuu la jaanqaado dunida casriga ah ee noqotay halka tuur cabdi waxa uu gatay dhowr koorso oo online ah si uu kor ugu qaado xirfadiisa aqooneed ee looga baahan yahay goobaha shaqada laakiin cabdi waxa dhibtay luqadda Ingiriisiga macallin kasta iyo koorso kasta uu gato waxay noqotay luqadda Ingiriisiga erey walba wuxuu u isticmaalayaa Google Translate maalmo kadib cabdishiin waxa uu helay shaqo maamulihiisa ayaa u diray inuu diyaariyo robootka asbuuclaha laakiin cabdi waa qori waaya hal paragraph oo English inta dambena Soomaali buu ka dhigay hadda cabdi waxa uu noqday ganacsade waxa uu doonayaa inuu xiriir la sameeyo dad aan Soomaali ahayn oo joogto daafaha dunida laakiin cabdi waxa haysata caqabad ah oo dadkaas kula xiriiri lahaa dhammaan caqabadaha aan soo sheegay iyo kuwa kale waxa ay wajahayaan dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee doonaya inay la jaanqaadaan dunida casriga haddii doonayaan inay wax bartaan shaqeeyaan ama ay abuuraanba ganacsi runtii barashada luqadda Ingiriiska waa muhiim si loo xalliyo caqabadahaasi ku kale oo badan Newlands waxa idin keentay course intensive oo online course-kan wuxuu isugu jiraa laba qaybood tan koowaad ah xiisado live ah oo ku baxay Zoom kuwaas oo toos u horfaysanaysa macalinka ku dhigaya luqadda iyo sidoo kale muuqaallo duuban oo aad daawan kartid xilli kasta iyo meel kasta sidoo kale course-kan waxa dhigaya macallimiin native ah luqadda u dhalatay course-kan wuxuu leeyahay certificate of completion laakiin wuxuu soconayaa 2 bilood isdiiwaan gal hadda kana faa'iideyso fursadan discount-ka ma sanadeen